marka ugu horeysa Kubra Xaaji Xasan adeer baan u ahay Maxamed Kayne wuu yahay Somaliland wax badan bay tartay haday biyo dhaamiskii tahay wayna taaragtay masalaadiin oo reerka inaan bixinayo inaan warniyo cimaamada yar baysteene $5,000 inta u dirtay Dubai tiri cimaamadiyo goyaal shalay u sheebiyo koofiyado ninka aadan li Ali ah u qaybiyay isaga iga waramay anigu ma ogeyn hadii geeri timaado boqolkiiba 3 meelood meel baa laga qaadi jiray hadii dhakhtarka qof ku jiro yada la hadli jiray odaya inaan iyo oday waxaan oran karaa waa boqorada Daahir Faarax Ismaaciil Umar Daahir waxay ku banaantay in boqorad laga dhigo oo loo caleema saaro xildhibaan bay doonaysaa wax ka sareeyaba waxaan oran karaa inanta dhibaato weyn baa loo geystay anigu waxaan ahaa dadkii Hargeysa joogay meerad baan Hargeysa ku haystay dadkii ka gurmaday ee markay buuhood la joogtay Burcaash shir jaraa'idka ku qabanayay ee gudida nabadgelyada shanta nabadgelyada u tagay miiska u garaacay ee arrimaheeda ka hadlayay baan kamid ahaa inanta wasiirka arrimaha gudaha amar ku soo bixiyaan la xidho odayaashii gudidii reer Daahir waxay la shaqeynayeen wasiirka arrimaha gudaha odayaashii iyo cidii caaqiladii wasaaradda arrimaha gudaha la shaqeynayeen dhammaan waxa weeye iyadoo musharaxad ahayd xisbiga waddan ka sharaxneed wuxuu yidhi haddaan kulmiye iska soo sharaxin waxay iska soo sharaxaysaa waddani ma jirto waan xidhayaa waxa dhacday inay tidhi anigu golaha dhexe waxaan ku jiraa xisbiga waddani markii reerihiisu soo bandhigay Kubra iska sharax kulmiye waxay tidhi anigu golaha dhexe ku jiraa xisbiga waddani baanahay weligeena ma guurguurin waddani baanaan ka sharaxnaanaya waxa ogtiin reer Daahir la yaabaan golaha baarlamaanka inay cid ka soo bixin tala xumadaas waa mid ku timi wasiirka arrimaha gudaha adeerka Maxamed Kayne waxa weeye maanta inantaasi buu hodlay oo arartay maal badan iyo qasaare badan baa gaadhay bariig bay tagtay hawd bay tagtay iyadoo ciidamada booliska Somaliland ka baqanayo ee mas'uulka uu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha adeerka Maxamed Kayne Axmed inantaas waa inaan wax garada waa inaan abwaanada waa inaan wax qaban karta waa inaan qaranka wax u qaban karta waa inaan qaaliya waxba amaanteeda yaana ku dheeraanine waxa weeye qof kastoo garanaya inanta kartideeda iyo awoodeeda iyo aqligeeda iyo fiicnaanta iyo fariidnimadeeda woogti waxaan leeyahay wasiirka arrimaha guduhuna intay wax tartay wax ma tarin madaxweyne Muuse Biixina intay wax tartay ma tarin dhaqaalihii iyo maalkii uu la dagaalamay madaxweynena bixiyo wasiirka arrimaha guduhu dagaalka la galeen ee ku rideen dhaqaalihii ka baxay iyo adduunka dhowrka $100,000 ahaa tiina waxba loogama celin dawladdu dad bay wuxuu celisay iyada xilli lama siinin waxna looma celin beer ay leedahay oo ku lahayd 2 hektar ay ka iibsatay meesha la badda cas qoyska Muuse Biixi baa ka qaaday waraaqaheedu way haysataa xoog baa lagaga qaaday intii horeyada haysatay lahayd markii Muuse Biixi yimi ayaa xoog lagaga qaaday qoyska Muuse Biixi baana ka qaaday beerta haddii cid u baahan waraaqaheeda waan u soo bandhigeena Muuse Biixi wuxuu caadaystay inuu habar jalo isagii qoyskiisu ay ka qaadaan dhulka hantida guryaha iyo lacagta